Assalaamu calaykum kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiin halka aad naga daawanaysaan waa SMN TV1 kusoo dhawaada wararkii Soomaaliya iyo caalamka haddaynu ku bilaabno qodobadeennana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku kulmi doona waddanka Turkiga. Dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka Shabeelow dagaal culus ku qaaday iyagoona looga qabtay ajaanibtii ugu badnayd deegaankaasi Shabeelow oo ka tirsan gobolka Mudug. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, subscribe-na noo taabo, falanqayntana commentiga noogu reeb. Isku soo noqod habboon saaxiibada qadarinta iyo qiimaha naga mudan. Waa hagaag isku soo noqod habboon haddaynu ku bilaabno qodobkeena koowaad ee SMN TV1. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo mar kale loo doortay 5 sano soo socoto inuu horay u wado maamulka Puntland ayaa wuxuu qorsheynayaa inuu kulan la yeesho madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulankaasi oo ka dhici doona dalka Turkiga ayaa waxa ay ku gorfeen doonaan xaaladda dalka Soomaaliya iyo doorashada 2026. Madaxtooyada dowladda Puntland ayaa weli ka hadlin safarka madaxweyne Deni uu kula yeelan doono dalka Turkiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya. Golo badan oo wasiiro ah oo ka tirsan xubnaha Siciid Cabdullaahi Deni ayaa la sheegay inay xogtaasi hoos ahaan aysan u dusin. Xubnaha warfaafinta madaxtooyada u qaabilsan ayaa amar lagu siiyay inay xogtaasi dhiibin ama aysan dusinin. Kulankaasi ayaa walaac xun waxaa ka muujiyay madaxweynaha haatan talada haya dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Villa Soomaaliya. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa lagu wadaa maalinka Talaadada ah inuu u safro halkaasi iyo waddanka Turkiga, halka madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu haatan ku sugan yahay waddanka Qatar asagana uu u duuli doono ee waddanka Turkiga. Muddaxileedkii hore ee Siciid Cabdullaahi Deni ayaa wuxuu mixnad ku noqday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaasi uu ku soo saaray Xasan Sheekh Maxamuud uu u shubay codadkii ugu badnaa uu haystay Siciid Cabdullaahi Deni. Shirkaanina sheedha kore waxaa kala socon doona xubnaha siyaasiyiinta Soomaaliya iyo wixii ka soo baxo shirkaani. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa caleemasaarkiisii wuxuu ku casumay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaasi uu cudurdaar ka soo dhiibtay. Kulankani oo u muuqda midaan baaqan doonin ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la xaqiijiyay inuu Isniinta ka duuli doono Qatar halkaasi uu ku wajahan yahay waddanka Turkiga. Deegaanka Shabeelow ayaa waxaa la soo sheegay inuu dagaal aad u qaraar ka dhacay saaka. Deegaanka Shabeelow ayaa wuxuu hoos tagaa gobolka Mudug. Deegaankaasi oo la soo xaqiijiyay warar dheeraad aynu ka helayno inay ururka Al-Shabaab ku qaadeen saakay dagaalkaasoo ku bilaabmay waxyaalaha qarxa ayaa waxaa la soo sheegayaa ilo hoose oo aynu deegaanka ka helayno inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed khasaare ka soo gaaray dhaawac iyo dhimasho iskugu jira, inkastoona ay soo bandhigin khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Dagaalkaasi oo la soo xaqiijiyay in lagu qabtay ajaanib fara badan oo ka kala yimid Kenya, Morocco, Tanzania oo u dagaalamayay ururka Al-Shabaab ayna gacanta ku dhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Haddaynu ku soo gabagabayno qodobka ugu dambeeya wararkeena caalamka ayaa waxaa ka mid ah Xamaas oo la sheegayo ciidan fara badan oo boolis ah inay ku daadisay Gaza. Halkee ciidankaasi la geeyay maxayna qabanayaan?
waana maxay lacagta ay sheegeen inay maanta qaybiyeen. Fashilka ciidamada Israa'iil oo ku dhow inay iscasilaan. Wakiil ka tirsan ciidamada Israa'iil. Saddexda sargaal ee arrintaasi ku fakiraysa. Ciidanka Israa'iil oo ku fakiraya inay iskaga baxaan Khan Younis. Xaafado kale oo ka tirsan magaalada Gazana iskaga baxay. Sababta keentay inay iskaga baxaan xaafadaha dhinaca waqooyi ciidamada Israa'iil. Dagaalkaasi oo ay doonayaan ciidamada Israa'iil inay hadda u wareejiyaan dhinaca Rafah, halka qaarna ay aaminsan yihiin dhinaca Lubnaan inay u wareejin doonaan. Haddii ay suurtoodo maxaabiista in la isdhaafsado ayaa waxaa la rajaynayaa dagaalka ka socda Gaza dhinaca Rafahna laga baqayo inuu ka bilowdo inuu halkaasi ku baaqan doono maadaama maxaabiistii ay kala wareejisteen. Halkaasina waxaa noogu eg wararkii Soomaaliya iyo caalamka. Kulan dambe oo xiiso badan. Nabadino.